السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تشرفت له كسو دواذا مقال عصب ما أنت ومالين جمعة هالمرة أسكول الصلينا حبيبك أنا صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم قصة ما أنت أني لو ذاقا وقصة آد وحنون بضن أو كل عذا قبل الصور كذا إذن مقضي أو هاد عروسة عصب أو مركي قورستي oo gabadha markay guursato waa taqaanaa farxad nolol macnaha cusub oo bilaabanayso haddana gabadhan waxay ahayd gabar oo ninka is guursadeen aad ay isku jeclaayeen in muddo ah isfahansan yihiin ayada waxay kasoo jeedaa reer lacag leh sidoo kale ninkeedana nin xoolo haysta ayuu ahaay oo wax bartay labadooda waxba isla barteen oo jaamacada iskala soo qalin jabiyeen sheekada waxaan u naqon doonaa bilawga meeshay kasoo bilaabatay gabadhan magaceeda waxaa la yiraahdaa Mia gabadhan ilmaha markii ay korayaan waad ogtiin qof baa jira saaxiib ah ee dariska ay leeyihiin ee isla ciyaaraan iskula baxdo saaxiibo isla soo barbaara ah gabadhan waxay haysatay gabar saaxiibteed ah dariskeeda ah gabadha saaxiibteed ah waxaa la yiraahdaa Jessica ayadana Mia la dhahaa labadoodana waxay kasoo jeedaan waxa waaye dalka Indonesia waana dalka Indonesia waad ogtiin waa dal muslim ah gabdhahan markii ay imaadeen America imaadeen inay wax ka bartaan ee jaamacad ka bartaan hal jaamacad ay wada dhiganayeen hal meel ay wada degnaayeen maalin maalmaha kamid ah ayagoo iska sheekeysanayo oo meel ka faay joogo baa waxay tiri Jessica waxay tiri saaxiibkeesaan waaye saan ugu sameeyay macnaha Jessica ayadaa jecleed laakiin asaga ma jecleen saaxiibkeed kabacdi Mia baa waxay siisa advice fiican oo adiga aad sii lahayd qofka saaxiibka ama qofka walaalka ama qofka aad jecesha waxay ku tiri saaxiibkaaga waxa waa trash ama qashin ee iskaga tag uma qalantid asagana macnaha kuma qalmo waa nin dayus ah Jessica ayaa hadalkaas aad iyo aad uga carootay weyna istaagtay markay istaagtay waxa waaye waxay uga kacdo maqaadib uga baxdaba meeshii bay safaarada ku kala qaateen labadooda haddaba meesha inaad dhegeysato waa maxay waa important waa meesha cadowtinimada ay ka bilaabanayso Jessica maalintaas ayaa cadownimo ay u qaada saaxiibteeda labadoodana ay safaarada kala qaateen mid walba nolosheedii bay horteeda u raacatay Jessica noloshii ninkii ay la wada way ka burburtay oo macnaha eelba isma qabin saaxiibo leh ahaayeen waxaanaha uu ka tagay shaqadii laga soo ceeriyay ayadana waxay noqotay dadka nolosha ka dhacsan oo daraagiska ama khamriga cabaan ayay noqotay halka Mia nolosheeda maasha Allah perfect u tahay de nolol maasha Allah ay ku jirtay and waxa waaye ay guursatay aroos weyn ay dhigatay baali ku dhigatay laakiin si aysan uga yarin Jessica baa waxay aragtay markii in nolosheeda naagtan u qurux badan tahay aad iyo aad uma seertay ugana carootay waxayna tiri nolosha naagtan uma qalanto waana inaan dhaafiyaa nolosha si kaleeto ugama qaadi karo farxadan ay haysato bas maalmaha kamid ah telefoon u soo dirtay waxay tiri horta labadood waxay ku soo noqdeen wadankii ku soo noqdeen oo America way ka soo tageen Indonesia ku noolyiin markaan ka bacdi balaankeeda waxay tiri meeshaan ku fiican inaan ku dilo telefoon ay u dirtay waxayna ku tiri kaale waxaan rabaa inaan is aragno oo macnaha in muddan isku keen dambeysay inaa just isla sheekeysana camal and then Mia run ahaantii maysan hubin sababta naagtan way kiniyad jabta saaxiibtinimadeeda laakiin waxay tiri okay waayaha aniga heblaayo ayaa is soo raaceen gabar saaxiib ahaayeen bas markaas waayihii ku tiri waa la isbalansaday maalintii ay rabeen inay kulmaan 2 saac ka hor Jessica baa waxay aaday maqaayadii ay ku balamisay si ay u fiiriso kaamirooyinka meesha ay ku xiran yihiin ay meel oo macnaha waxay diyaarsatay oo ah balaankeeda ugu fulaayo oo kursi gees ah ayay diyaarsatay ka bacdi way soo baxday 1 saac markii ay ka dhineeday ayaga wacday waxayna weydiisay waxa ay cabayaan waxay tiri aniga idin sii dalbaayo ee ii sheega way u sheegeen Mia waxay dalbatay ice coffee gabadha kale tan run ahaantii lama sheegin waxa ay dalbatay laakiin adiga cabitaankooda markii ay dalbadeen baa waxa waaye ay timiday 30 daqiiqo ayadoo ka dhiman tahay nus saac ayay maqaayadii timiday cabitaankii bay dalabtay ayadana waxay la timid shopping package oo 3 xabaa la imaaday markaas waxay sameysay cabitaankii markii la siiyay ay miiska saartay ay waxay sameysay
hortiisi bay baakadihii ay shoppingka ay ku wada ayay dhigtay si macnaha ay u qariso waxa ay sameynayso aan loo arkin. waxay ugu darta sun oo 300 oo garan ah ayay ugu dartay. suntaan 150 ayaa dadka lagu dilaa, ayada macnaha laba jibaar ay ugu dartay cadowtinimada ay u qabtay naag xaasidnimadeeda. war naag saaxiib ma gasho yaa allah. wallahi qisadan markii aan maqlay aad iyo aad ayaan uga naxay run ahaantii. macnaha 300 oo garan waa ayadoo macnaha laba qof ugu tala gashay inay ku dhimato kaleeto, because halka qof waxa la yiri 150 aad dilayso, ayadana waxa waaye waxay sameysay laba jibaar ay ugu dartay 300 ay ugu dartay cabitaankii. gabdhihii markay imaadeen ay soo fariisteen hal mar kaliya bay san u dhidhimisay, andee waxay tiri cabitaankan maxaa waaye sidoo u dhidhama waxba ka qaldan. isla markiina madaxeeda gadaal ayuu u dhacay. markuu u dhacay waxay sameysay iyada dhan waa isla gariirtay, afkay xunbur ka keentay, andeen meeshay ku dhacday dhimatay. dadkii dhan maqaayada joogeen shock ay wada naqdeen, waa la wada naxay, waa la wada argagaxay. halka Jessica iska fadhiday ayada oo qoslayso sida sawirka idinkaga muuqdo, ayada oo qoslayso oo ku faraxsan macnaha in ay gabadhan dilkii ay ugu tala gashay usoo shirqooshay oo u fulay. markaasayto waxa waaye Jessica watan ayada oo la soo xiray wali way qoslaysaa. xataa sawirka qofka marka la soo xiro laga qaado inuu madnuud noqdo kaleeto soo maahan, ayada waxa waaye all the time way qoslaysaa mar walbo. kasoo qaad markii ay gabadha ay dhimatay oo meedkeeda dadka dhan intay kusoo carareen ay kor taagnaayeen wali way qoslaysaa. kabacdi maqaayadii idoo la joogo oo gabadhii ay sidii ay nafteeda ay ku weysay bay Jessica waxay rabtaa macnaha qof ay eedeyso. maqaayadii dadkii lahaay farta ku taagtay waxay tiri waryaada maxaad ugu darteen gabadha cabitaanka. waana halkan meesha ay ku fashilmatay. macnaha hadalkaas hadaysan dhihi lahayn waxaa laga yaabi lahaa dambigeeda inaan la ogaan, laakiin meeshan waa meesha ay ku dhiiqatay. sababtay taa naagta managerta waxay tiri inaan anaga waxba aanan ugu darin waan ku cadeynayaa. oo cabitaankii gabadhii ay cabaysay bay waxay sameysay meel ku shubtay ay safe gareysay. gabadhii ambalaasa qaaday, isla markii naftooda ka baxday ambalaasa qaaday, isbitaalkii baa la geeyay oo waxa waaye jirkeedii baa la baaray, waxaa la ogaaday in ay sun u dhimatay. kabacdi booliiskii baa maqaayada imaadeen maalintii ku xigtay. markii ay imaadeen waxay ka qaadeen cabitaankii gabadhii ay cabaysay ee managerta meel ay dhigtay. kabacdina markii cabitaankii la baaray suntii gabadha jirkeeda laga helay ayaa cabitaankana ku jirto. markaas waxaa la fiiriyay CCTV camerada, waxaa la ogaaday 2 saac ka hor inay naagtaan imaada meesha, haddana ay baxday, haddana ay la soo noqotay iyada oo wadato shopping bags, iyada oo wadato la soo noqotay. kabacdina iyadoo meesha fadhida saaxiibadeed u yimideen, wixii dhan baa la ogaaday inay qorsheysnaay dilkan ay naagtan ay kasoo shaqaysay. kabacdi familka gabadha dhalay gabadha dhimatay baa waxaa laga codsaday in meydka jirkiisa la qalo si gudaheeda loo fiiriyo, macnaha ay uga qaataan evidence weyn. maxaa yeelay Indonesia qof markii qof disho waa dil toogasho, si macnaha dil toogashada markii gabadha lagu xukumaayo ay cadeyn weyn ee ula tagaan maxkamadda booliiska. laakiin familkeedii ayaa diiday, waxayna dhaheen dad muslim aan ahnay lamana ogolo inaa maaragtay meydka jirkiisa dhaawac loo geysto. adiga in mudaahidii diidayeen, kabacdi markii dambe ay ogolaadeen oo laga dhaadhacsiyo naagtan waxaad uga cadgoosan kartiin inaa maaragtay meydkan jirkiisii la baaro. kabacdi meydkii markii oo la isku dayay in la baaro sunta jirkiisa way ka baxday. sababtay taa waxaa la laatay 4 saac kabacdi ay suntaas ay ka bixaysaa jirka qofka markii disho. marka sidaas baa waxa ay ku heshay jaanis ah inaan dil toogasho lagu xukumin, laakiin 20 sano oo xaraga ayaa lagu xukumay. familkeeda famil lacag la ay ahaayeen, waxayna u xeetaa maaragtay qabteen lawyerka ugu weyn Indonesia oo dambiilayaasha oo maaragtaa u dacwoodo. dee lawyer waa ogtaa wuxuu ka naxaya malahan shilinkiisa iyo bangigiisa u daranay. marka waa kaasa walaalahay waxaan jeclaystay qisada inaan ila wadaago. Jessica waxaa lagu xukumay 20 sano oo xaraga. qisadana waxay dhacday 2016. naag saaxiibkeeda Sembir waxaa ka dambeyso qandasaan u tiil qanda dheer weyn ayaa ka dambeyso, laakiin satan saaxiib ma ahayn, waxay ahayd naag xaasidada. all of thisna waxay u sameysay ay gabadhan ee maaragtay nafteeda ay u dhaafayso waxay ahayd maseer dartiisa. oo sidee baa nin fiican ku heli kartaa, sidee baa nolol fiican ugu noolaan kartaa.
okay walaalahay qisada halkaas ay kusoo dhamaatay waxaan jecelahay inaad ka hesheen haddii aad ka hesheen like itusiya haddii oo channelka subscribe oosan ku ahayn subscribe noo saara aad iyo aad ugu mahadsantahay insha Allah waxaa idin soo geli doonaa 3 video weekii qisooyinka adduunka ka dhaco wixii adiga aad jeceshahay channelka inaan kusoo kordhiyay xaga commentiga nagula wadaag aan TikTok in iga soo follow gareysa ha ilaabin haddaad TikTok iga soo follow gareen wax badan baa ku dhaafayo maxaa yeelay alaabo kale iska arag ah oo waxaan ku dhahay naqato qurxin haday naqato gurigaaga sharaxaadiisa wax walba ayaan halkaas kugu soo bandhigi doonaa TikTok shopka ayaan maaragta alaabaha aan ka dalbado ayaan halkaas muuqaal ahaan idinkugu soo gudbi doonaa asagana waxaan kusoo galnaa isku filan reviews aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalkaneeto waa inoo muuqaal xiga insha Allah fi amaanillah